la iga beeray mama marka hore mabuguma saacadihii ugu dambeeyey waxaa lasoo sheegaya walaasheen macaan rasmi rays fanaanadiina qaalidina go inay ku mushay si nabad ku dhashay caafimaad qabto muuqaalka shaashad niga muuqda tahay qof caafimaad qabo caafimaad ku dhashay oo nuunaheeda yarkan waa caafimaad qabo muuqaalkan oo baraha bulshada oo qabsada dhammaan social media hambaleediisa laisla dhex wareegayo ayaa noqday muuqaalkii ugu wanaagsanay ee soo bandhigtay misana ugu farxadda badnaa ee dadka la soo wadaagtay markii ay rasmi rays uurka ee lahayd haddana ay si nabad ku dhashay dadkeeda taageerayaasheeda u soo bandhigtay laakiin intaa faahfaahin misana wax niyo gudagal waxay jeclan lahay channelkayga inaad subscribe saartiin aad u mahadsantihiin viewskiisuna wuu yar yahay si oo meel sare u gaaraan share garaysiin laagtiina waa noo muhiim marilbo asxaabteyda qaalida taasna waan iga codsan lahay inuu noqdo muuqaalka waxaa rabaa muuqaalka ugu viewska badan misana ugu daawashada badan ee dadka ee daawada inuu ii noqdo si oo adigana channelkayga meel sare u gaar aad u mahadsan tahay inta sida ii sameeyay muuqaalka insha Allah ugu dagal oo daawo xalay ayay ahayd walaasheen macaan rasmi rays fanaanadeena weyn alla weyn waaxid ayaa umushay oo soo sheegtay muuqaal ay kusoo baahisay barkeeda tiktoka in ay umushay ayna dhashay cunuunaheeda oo iyada iyo nuunaheeda nabad qabaan misana caafimaad qabaan baraha bulshadana kusoo sheegtay in ay wax dhibaato aysan haysan oo ilaahna oo kala keenay iyadoo caafimaad qabtane oo maanta ilaah kala keenay hambalyeeda la isla dhex wareegaya fanaaniin badan oo caan suldaan seraar xariir axmed dad badan oo caan adiga intaas lagu soo koobi karin jimnishaad dad badan shaadi sharaf dad badan oo caan usoo hambalyeynaya fanaaniinta dhammaan meel dalay dibad ay joogaan ugu soo hambalyeynaya dhanka barta tiktok ay ku leeyihiin mise dhanka facebook ay ku leeyihiin hambalyo ugu soo diraan iyadii nuunaheeda yar oo u dhashay ilaahna waxaa uga baryaynaa nuunaha siriiska inuu noqdo midkii dadkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaco si oo asigana meel sare u gaaro ilaah waxaa uga baryaynaa midkii sharaf iyo qiimo ku weynaado misana akhlaaq qurux badan ku weynaado inuu ilaah ka dhigaa rajeynaynaa dad badan ayaa ugu soo hambalyeynaya baraha bulshada tiktok ahaato instagramka ahaato snapchat ahaato meel walba social media facebook ugu soo hambalyeynaya mar ay muuqaal yar ay kusoo bandhigtay oona sidaas u badnay muuqaalo badan ay soo bandhigay laakiin muuqaalo yar ay soo bandhigtay oona hal muuqaalo ku sheegayso inay umusho ilaa kala keena taageerayaasheeda maadaama ay jecel yihiin inay ka welwalayaan oo mar ay dhanka tiktok ay kusoo bandhigtay in xogaa culays badan iska jiraan si ay culaysyadaas ilaa uga fududeeyaan asxaabteeda mise dadkeeda duco ka dalbata si ay ugu soo duceeyaan laakiin ugu dambeyntii dadkeedii way u soo duceeyeen ducadoodana ilaah waa u aqbalay taasoo ay ka mid noqotay inuu ilaah maanta caafimaad iyo caafimaad qabta alla kala keenay dad badan ayaa ugu soo hambalyeeyeen hambalyada laisla dhex maraayo baraha bulshada oo maanta saaid u qabsatay oona ay tahay nuunaha yar ee dhashay misana u dhashatay fanaanadiina rasmi rays oo nigu qaalid rasmi rays ayaa dhawaan usoo sabartay misana usoo adkaystay nuunaheeda yar intaasoo 9 bilood oo calash ay kusoo waday oona si caafimaad qaban ilaah maad ku keelkeena ayaa farxadeeda taageerayaasheeda ay jeceshahay ee la wadaagtay isceli weysay si ay isla markaa ay dhashay iyadoo goobteeda isbitaalka ay ku sugan tahay muuqaal ay kusoo bandhigtay ku sheegtay in isla meesha isbitaalka ay ku dhashay ay ku sugan tahay oona ilaahay ku caafimaad keen oona faraxsan iyadoo qoslaysan ee muuqaalka soo bandhigtay dadkeedana u sheegaysa inay caafimaad qabto dad badan ayaa ka walwalaayeen dhalitaankeeda misana dhibaato inay maris laakiin ilaah wuu u fududeeyey dad badan ducadii ilaah u aqbalay ilaah ducadoodana waa u aqbalay ilaahna u fududeeyey aad ay mahadsantiin muuqaalkan haddaad daawashadiisa dhamaysteen laagtaan iga baqaylina subscribe-kiina noo muhiim commentkiina waa noo dhiirigelin hambalyada dhankiina waa ininka weeyaan dee hambalyadina hanigala arka commentiga soo dhawaada